بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشركان waxaan ku baranaynaa qaabka abiska taleefanka uu leeyahay loogu sameeyo loo siiyo permissionada si ay maaragtay loo isticmaalo abkaas. Ababka way badan yihiin. Ab walba wuxuu u baahan yahay in permission la siiyo si uu u isticmaalo kale. Tusaale ahaan oo kale microphone-ka, kaamirada, maxaa la dhahaye qaybta messageska, xataa in access uu yeesho ayaa fasaxyada loo siiyaa, iyo maaragtay in maaragtay contactska uu isticmaalo kale. Si maaragtay u isticmaasho waxyaabahaas oo dhan waxaa u baahan tahay in maaragtay fasaxyo lagu siiyo. Tusaale ahaan hadda haddii aan WhatsApp-ka kale aan ka soo qaadno kale, waxaad tegeysaa qaybta settingska markaad tagto waxaad tegeysaa abiska meeshay ku qoran tahay abis. Waa kana abiska meeshay ku qoran tahay ayaa click siinaysaa. Waxaa ku soo baxayo wixii app oo jiro dhan oo maaragtay taleefankaaga ku jiro dhan ayaa ku soo baxayo. Marka haddii anaga waxaan u baahannahay WhatsApp-ka ayaan u baahannahay. WhatsApp-ka in aan maaragtay fasaxyada sida microphone-ka ama kaamirada ama wixii la mid ah aan fasax u siino. Marka waa kan hadda permissions meesha ku qoran tahay WhatsApp-ka ayaan click siiyey. Marka abiska tagay qaybta permissionska ay ku qoran tahay camera, contactska, files and media, location-ka qofka meeshuu joogo xataa fasax ayuu u baahan yahay in maaragtay ayaa ka dhigaysaa. Phoneska iyo SMS-ka message-yada ayay ka wadaan. Marka haddii aan permissionska click siino, watan hadda camera haddaan fiirino kale wuxuu ku leeyahay allow only while using the app. Macnaha u ogolow appkan marka la isticmaalayo kaliya u ogolow ayaad maaragtay ayaad dhihi kartaa. Waxaad dhihi kartaa oo kale ask every time, mar walba i weydii maaragtay si aan u isticmaalo appkan. Ama waxaad dhihi kartaa deny oo kale. Deny waxaa waaye diidmo waaye. Permissionska ayay cagsi ku tahay. Permissionka waa fasax la bixinayo. Aan dhahay allow ayay waxay ku tahay opposite ama ay ka soo horjeedaa waa deny. Waa diidmo, waa allow-na ogolow waaye. Marka deny markaad tiraahdo oo kale appkan ma ku shaqeynayo, wuu ka diidaya. Laakiin marka allow dhahdo oo maaragtay allow aad tiraahdo waxaa fasax u siisay appkan in la isticmaalo. Haddii aan tagno kale contactska sidoo kale waa fiir hadda allow iyo deny waaye. Markaan rabo inaan isticmaalo appkan oo WhatsApp-ka qof iigu jiro contactska iigu ogolow in aan maaragtay aan waco kale allow ayaa leedahay. Haddii aadan rabin maaragtay contactska inaad isticmaalin qof kugu jiro ama dad kugu jiro kale deny ayaa leedahay. Marka hadda anaga allow mar walba u baahan tahay allow ayaa leedahay. Marka qaar deny ayuu ku taagan yahay. Marka si aad u fahanto cilada meeshii ka jirto qaybtan ayaa imaanaysaa. Hadduu deny ku aadan yahay allow ayaad geynaysaa. Marka hadda microphone-ka kale waa kana fiir microphone-ka deny ayuu igu aadan yahay oo diidmo ah. Haddii aan isla fiirino kale oo aan tagno WhatsApp-ka aan sameyno call oo aan dhahno fiiri tusaale oo kale hadii Fitaax Daawaan oo kale wuxuu ku leeyahay to call allow WhatsApp access to your microphone ujeedaa. Marka qaarsan ayuu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay to call allow to call si aad u wacdid allow u ogolow WhatsApp-ka access to your microphone-ka inuu access u yeesho in la isticmaalo because deny ayay noogu aadaneyd. Marka continue ayaan leenahay. Haddaadan rabin inaad isticmaasho Microsoft-ka not now ayaa leedahay. Haddii aad rabto inaad isticmaasho waxaa leedahay continue waa kana marka while you using the app isticmaal maaragtay u ogolow markii maaragtay appkan isticmaalayo microphone-ka inaan isticmaalo only this time u ogolow ayaa dhihi kartaa. Hal mar u ogolow ayaa dhihi kartaa. Deny hadda uu ku aadan yahay. Marka waxaan leenahay u ogolow allow WhatsApp to record audio maaragtay while you using the app. Hadda waa ka isticmaalaysaa. Marka haddii aan ku noqono kale hadday
uu naga diidayay in aan whatsappkii maaragtay wacno because microphone-ka noogu macdan abiska ayaa tegeysaa. Abiska tagto waxaad tegeysaa whatsappka ayaa tegeysaa. Abki markaas aad rabtid ayaa adiga aad doonaan. Hadda tusaale ahaan whatsappka ayaan usoo qaatay permissionska ayaa tegeysaa microphone-ka hadda deny oo noogu aadanay. Hadda markii aan call-ka sameynayna ayaa waxaan ka dhigay allow only while using the app. Marka qaabkaas ayaa loo isticmaalaa in ababka permission ama fasaxyo la siiyo marmarka qaar markaad isticmaalayso kale taleefankaaga Samsung-ka ama iPhone-ka oo rabto inaad qof wacdo kale marmarka qaar deny ayuu kaaga aadan yahay si aadan maaragtay u wareerin oo maaragtay confuse maaragtay u qaadin waxaa imaanaysaa qaybtan